السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo هذا channelka Hilaac Production. Asxaabay dhalada waxaa loo isticmaalaa dhismaha. Hase yeeshee tayadeeda waa ay kala sarreysaa. Mid ayaa adeegeeda waxa uu gaaray inaysan ka dhex bixi karin xabadda, halka dhalooyinka qaarkood ay aad u jilicsan yihiin. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa dhalooyinka aadka u adag, kuwaasi oo u dhexeeya bini'aadanka iyo xayawaanka. waxaana aadi doonaa halka iyo beeraha lagu xanaaneeyo xayawaanaha kala duwan. Dhalooyinkani waxaa jebinaya xayawaano kala duwan. Nasiib wanaag waxaa soo qabtay kaamirada qarsoon. Aan ku bilowna asxaabay madax ku tigaani cad. Dadka aad ayay u caawisay dhalada maxaa yeelay waxayba ismoodaan inay la joogaan madax ku tiga. Taa micnaheeda ma aha inay ka ammaan galayaan xayawaanada aadka u khatarta badan, maxaa yeelay xilli walba waxaa dhici karo wax lama filaan ah. Waxay kaamirada qabatay labada nin oo ku raaxaysanaya daawashada madax kuti aad u weyn. Hase yeeshee madax kutigaani ma uusan jeclaysan. Waxa uu soo qaaday dhagax aad u weyn. Waxa uuna isku dayay markii koowaad inuu jebiyo dhalada. Hase yeeshee way u suurtageli weysay. Markii labaad aad ayuu u soo tuuray dhagaxa ilaa uu ku sigtay inuu jebiyo dhalada. Nasiib wanaag, dhaladii ma aysan jabin. Labadii ninna goobtii ayay iskaga carareen. Xayawaanka labaad waa xayawaanka loo yaqaano gorillaha. Gorillaha wuxuu ka mid yahay xayawaanada aadka u dabeecadda xun. Midkiisa ragga ahna awooddiisa waxaa lagu qiyaasaa 5 nin oo qaangaar ah. Gorillahani kaamirada waxay soo qabatay isagoo isku dayay inuu jebiyo dhaladan. Waxa uuna ka xanaaqay gabadhan yar ficiladeeda. Nambarka 3 waa libaax badeed. Wax badan ayaan aragnay dad badda hoosteeda wax ka soo duubo. Dadkaasi badanaa waxay isticmaalaan shabaq kala duwan si ay uga badbaadaan khatarta xayawaanada ku nool badda hoosteeda. Hase yeeshee ninkani waxa uu isticmaalay dhalooyinka aadka u xoogga badan si uu libaax badeedka ugu daawado si toos ah. waxaadba moodaa inaad la dabaalanayso libaax badeedyada. Waxaa xaqiiq ah inay dhaladani aad u adag tahay. Hase yeeshee muuqaalkani waxaan ku arki doonaa wax la yaab leh. Dhalada waxay lahayd albaab laga soo galay iyo albaab laga baxo. Markii uu soo weeraray libaax badeedka, saaxiibkeen waa uu furay albaabkii si uu iskaga celiyay libaax badeedka. Nasiib wanaag waa uu xiray albaabkii. wax yar kadib waxaa soo weeraray 2 libaax badeed. Mid ka mid ah ayaa toos u soo abbaaray halka iyo albaabkii. Nasiib wanaag albaabkii waa uu xirnaa, waa uuna badbaadiyey saaxiibkeen. Nambarka 4 daanyeerkii xanaaqsanaa. Horey waxaan u soo aragnay xayawaano aad u waaweyn. Hase yeeshee daanyeerkan yar waxa uu noo xaqiijiyey inaysan u baahnayn awood in la jebiyo dhalo, balse ay u baahan tahay maskaxda oo laga shaqaysiiyo. Marka koowaad waxaad is leedahay waxba ma dhici doonaan. Hase yeeshee markii uu ku celceliyey dhowr jeer, waa uu jebiyey dhaladii. Nasiib wanaag wax xayawaan oo cararay ma laha. Dhaladiina waa la beddelay. Barnaamijkiina intaas ayuu noogu egyahay. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe, like, share.